xulafada reer galbeedka iyo saaxiibtinimada Ruushka, Ukraine oo tijaabisay siyaasadda Turkiga. Waxaynu warbixintan ku eegi doonaa barnaamijkeena xogta dunida. Anigoo Maxamed Abukar Kulmiye ayaa idin tabanaya ee mar kale soo dhawaada. Markii taangiyada Ruushku ay soo galeen Ukraine 6 bilood ka hor, dunida diyaar uma ahayn dagaalkaasi iyada oo ay ka soo kabsanayso saameynta dhaqaale ee caabuqa coronavirus. Isbeddelka siyaasadeed ee ka dhashay hoos u dhaca doorkii Mareykanka ku lahaa Bariga Dhexe iyo Bariga Yurub ee u xaglinayay danaha Bariga Aasiya waxay jahwareeriyeen xisaabinta dalal badan, kuwaas oo u dhexeeya ilaalinta isbahaysigooda soo jireenka ah ee reer galbeedka iyo inay la saftaan wax u muuqda inay yihiin door Ruush ah oo cirka isku sii shareeraya oo bilaabay in uu buuxiyo boosaskii uu doorka Washington ka noqday sida Bariga Dhexe iyo qaar ka mid ah wadamada Afrika. Marka la eego meesha uu ku yaal juqraafi ahaan iyo xubinnimada NATO ee sida wanaagsan loo aas-aasay, Turkiga ayaa noqday kan ugu caansan ee ku dhex milmay qalalaasaha Ukraine kadib markii uu xumaaday xiriirka uu la leeyahay Mareykanka iyo furfurnaanta uu la leeyahay Ruushka sanadihii u dambeeyay. Dhinaca kale, Turkiga waxa uu ku dhawaaqay in uu la safan yahay xulafadiisa dhaqameed ee Midowga Yurub iyo NATO, wuxuuna ka taageeray Ukraine siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba. Laakiin dhinaca kale wuxuu isku dayay inuu ilaaliyo dariiqyada adag ee isu duwidda ee uu la sameeyay Moscow 10 sano ee la soo dhaafay. Sidaas darteedna waxa uu ahaa wadanka kaliya ee NATO ah ee cunaqabateyn dhaqaale ku soo rogin Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jahwareer ku ah siyaasadda dheelitirka ee Turkiga ee ka dhexeeya xulafada reer galbeedka iyo saaxiibtinimada Ruushka ayaa ah in dalalka reer galbeedku mowqif adag ka istaagaan duulaanka lama filaanka ah ee Ruushka iyo sidoo kale in heshiis laga gaaro Ukraine ay caddaatay in laga yaabo inay qaadato muddo bila ah khasaaraha ciidan, siyaasadeed iyo dhaqaale ee dhammaan dhinacyada oo sii socon doona. Isla markaana uu ku jiro Turkiga oo dhaqaalihiisa uu durbaba la ildaran yahay hoos u dhaca lacagta gudaha. Si kastaba, Turkiga waxa uu ka hor yimid wixii laga filayay, waxaana suuro gashay in uu dib u habeeyo doorkiisa siyaasadeed ee uu ku dhex jiray khilaafka u dhexeeya labada dhinac, ilaa uu ka noqday marinka kaliya ee ay Ruushka iyo Ukraine ku wada xiriirayaan si loogu gogol xaaro xal u helista suurtagalka ah. Haddaba, inkasta oo go'aankeeda siyaasadeed uu yahay mid adag, Ankara waxay u badan tahay in ay ka soo baxdo dagaalka qofkii raba ha ku guuleystee. Turkiga joogitaanka dhinac walba. Maalintii ugu horeysay ee ciidamada Ruushku ay gudaha u galeen dalka Ukraine, Turkiga ayaa isla markiiba u dhaqaaqay masraxa caalamiga ah isaga oo ku sifeeyay madaxweynaha Turkiga Recep Erdogan tallaabada military mid aan la aqbali karin kana soo horjeeda sharciga caalamiga ah. Markii Ruushka uu bilaabay in uu cudud cusub ku soo rogo xudunta dagaalkiiyo moolalka magaalooyinka, dhaqdhaqaaqyada Turkiga ee dhulka ayaa u dhigmin hadaladooda rasmiga ah. Inkasta oo ay ka go'an tahay inay difaacdo madax-bannaanida Ukraine oo ay ku jirto jasiiradda Crimea oo uu Ruushku boobay 2014, haddana siyaasadda arrimaha dibadda ee Turkiga waxa ay qaaday hab dhab ah oo ay uga taxadirtay in aanay khatar gelin xiriirka Ruushka ee muddada fog, gaar ahaan xiriirka dhaqaale ee qalafsan ee uu la leeyahay Moscow. Halka NATO-na ay hubsaysay ciidamada Ukraine, Turkiga laftiisna uu ka qayb qaatay dadaaladii lagu hubeyn lahaa, isla markaana ay ku siiyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Haddana waa dalka kaliya ee NATO ka tirsan ee isku mar ku baaqay in la helo xal diblomaasiyadeed oo dhex mara labada dhinac kadib markii ay go'een isgaarsiintii u dhaxaysay Ruushka iyo reer galbeedka, kamana aysan jawaabin baaqyada la boonbooniyay ee kor u kaca ee uu bilaabay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, kaasoo Ankara ka codsaday inay isticmaasho awoodaha ay siisay axdiga Montreux 1936 si loo xakameeyo dhaqdhaqaaqa maraakiibta marinada Bosphorus iyo sidoo kale Dardanelles, iyo in laga hortago in maraakiibta dagaalka ee Ruushku ay dhex maran si wax ku ool ah u gooyaan Ruushka iyo joogitaankiisa ciidan ee ka baxsan badda madow. Ankara kama aysan jawaabin codsigii Zelensky, waxayna door biday in ay isticmaasho awoodeeda si ay uga hortagto dhammaan maraakiibta dagaalka ee dalalka ku yaala badda madow iyo kuwa aan ahayn miyiga sida dhammaan wadamada adduunka inay ka gudbaan labada marin. Go'aankaasi ayaan si cad u bartilmaameedsan Ruushka, wax saameyn ah kuma yeelan marka loo eego in dagaalka uu horay uga socday gudaha badda madow, iyada oo sidoo kalena la sheegay in Moscow ay durbadiiba dagaalka ka hor la baxday tiro ka mid ah maraakiibteeda dagaalka badda madow. Hase yeeshee, go'aanka ayaa si xun u saameeyay mowqifka militariga ee NATO sida lagu sheegay warbixin loo gudbiyay Koongareeska Mareykanka, taas oo lagu tilmaamay in Turkiga oo hoos yimaada Montreux kaliya ay xaq u leeyihiin inay xanibaan maraakiibta laga leeyahay wadan weerar ku ah wadan kale. Inkasta oo Turkiga si rasmi ah ula safan yahay xulafadiisa NATO, miisaaniyadiisa siyaasadeed ayaa ka fogeysay inay xiisada diblomaasiyadeed la gasho Moscow. Siyaasad aan ku cusbeen Turkiga oo hoos imaanaysa xukunka xisbiga cadaaladda iyo horumarinta. Tusaale ahaan, markii Ruushku uu ka helay Georgia, gobolada Abkhazia iyo South Ossetia
ee Georgia sanadkii 2008 Turkiga waxa uu diiday inuu ka gudbo maraakiib Mareykan ah oo doonaya inay u gudbaan badda madow, taas beddelkeedana Ruushka uma kala saarin Turkiga isbahaysiga wadamada aan saaxiibka ahayn ee ka qayb qaatay ololihii cunaqabateynta ee ka dhanka ah Ruushka. arrintan oo kale ayaa sanadkan soo noqnoqotay kadib markii uu bilowday howlgallada ciidamada Ruushka ee ka wadaan wadanka Ukraine. inkasta oo Turkiga uu xilligani ka qayb qaatay hubeynta koox ka soo horjeeda Ruushka, gaar ahaan heshiisyadii lala galay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Bayraktar, taasi oo khasaare xanuun badan soo gaarsiisay Ruushka, haddana Kiev iyo Ankara ayaa dhawaan galay wadaxaajoodyo lagu dhisayo warshad diyaaradahaasi soo saarta, taasoo caan ku noqotay intii lagu guda jiray dagaalkii Ukraine. ayaa ku kaliftay afhayeenka Kremlinka Dmitry Peskov inuu ku hanjabay in warshadaasi ay noqon doonto bartilmaameed militari oo lagu beegsanayo ciidamada Ruushka, iyada oo ka faa'iideysanaysa dib u dhaca militari ee bilowga ah ee Ruushka ee hoos u dhigaya koorsada dagaalka toddobaadyadii ugu horeeyay. Ankara waxa ay sii waday siyaasadeeda dheelitirka ah iyada oo aan ka tagin taageerada Ukraine ee NATO, iyada oo aan la rogin xisaabteeda juqraafi ahaaneed ee adag ee Ruushka, iyada oo qaar ka mid ah caasimadaha Yurub ay rasaas ku fureen Moscow. hoos u dhaca dagaalka iyo sidoo kale calaaqaadka ka dhexeeya Ruushka iyo reer galbeedka, Ankara waxa ay heshay fursad ay ku ballaariso saameynteeda gobolka, iyadoo ay ku dhex jiraan dadaalada Turkiga ayaa qasriga Dolmabahce ee Istanbul waxa uu martigeliyay wadahadallo u dhexeeya mas'uuliyiinta Ruushka iyo Ukraine. qasrigan oo ah hoyga saldanada Cuthmaaniyiinta todobaankii sano ee u dambeeyay horumarka loo arko inuu yahay kii ugu horeeyay tan iyo markii uu dagaalka bilowday. Ruushka iyo Ukraine waxa ay saxiixeen heshiis lagu sugayo dhoofinta haruurka Ukraine ee laga joojiyay dekedaha badda madow. Erdogan ayaa heshiiskaasi uga baxay si uu ugu dhawaaqo in Turkiga adeegsaday saameyntiisa goobta istiraatiijiga ah iyo xiriirka uu la leeyahay Moscow iyo Kiev si uu adduunka uga badbaadiyo khatarta macluusha ee soo socota. Turkiga ayaa hadda dhinacyo kala duwan uga qaybgalaya dagaalka socda. dhinaca kale waxay u taageertaa Ukraine hub ahaan, waxay u shaqeysaa sidii dhexdhexaadiyad diblomaasiyadeed oo guul leh oo u dhexeeya Moscow iyo Kiev, waxayna isku dayaysaa inay sii wado booskeeda awood goboleed oo leh miisaan gaar ah iyo door gaar ah oo ka dhex jira xerada reer galbeedka, iyada oo aan loo eexan xiriirka miisaaman ee uu la leeyahay Turkiga. Ruushka waxaa jira feelal adag oo ku saabsan xiriirka Ruushka iyo Turkiga, maadaama labada wadani ay weli isku hayaan juqraafi siyaasadeed ee dhulkii hore ee Sofiyeetka. waxay wadaagaan dana dhaqaale oo qoto dheer oo saameyntooda ayaa isku xirta bartamaha Aasiya, Qowqaas, badda madow, Balkans iyo sidoo kale bariga dhexe. way ku adag tahay in maalin iyo habeenba miiska soo jeediyaan ama ay buuxiyaan kharashka cadowtinimada cad. sidaasi darteed Turkiga waxa uu qaatay habka isu duwidda degdega ah ee Ruushka, inkastoo khilaaf u dhexeeya danaha dhinac kasta sida ku cad wadahadallada Dolmabahce iyo kahor sanadkii shaqada ee wadahadallada Astana ee Suuriya, iyo sidoo kale isu duwidda kadib dagaalkii dhowaan ka dhacay gobolka Nagorno-Karabakh ee Qowqaas. cadaawad taariikhi ah iyo baahi degdeg ah. Turkiga waxa uu weligiis dareemi jiray hanjabaadda Ruushka ee Sofiyeetka ee kontameeyadii iyo lixdameeyadii, kadibna waxa uu ku beeray NATO oo uu magaansaday dalladda reer galbeedka. xiriirka labada dal waxa uu soo hagaagay markii uu Turkiga galay Qubrus 1974, waxaana uu xumaaday xiriirkii uu la lahaa Mareykanka, kaas oo mamnuucay in hub loo dhoofiyo Ankara waqtigaas. kadibna waxaa gobolku ka mara kacay isku soo dhawaanshiyaha Turkiga iyo Sofiyeetka ilaa ay biyuhu dib ugu soo noqdaan koorsadii afgambiga 1980 ka dhacda Turkiga iyo duulaankii Sofiyeetka ee Afghanistan, taas oo walaac ka muujisay go'aan qaadashada ee Ankara. marka la eego tani, Turkiga waxaa loo tixgeliyay inuu yahay kii ugu caansanaa ee gobolka ka faa'iideystay dhicitaanka midowgii Sofiyeetka 1991, iyadoo tanina ay u furtay dhul siyaasadeed aad u baaxad weyn si ay u sameyso door cusub oo goboleed. markii xisbiga cadaaladda iyo horumarka ee talada dalka qabtay sanadkii 2002, isla markaana uu diiday in ciidamada Mareykanka u adeegsadaan dhul iyo hawada Turkiga duulaankii Ciraaq, iyadoo ay weheliso hadallo ku saabsan door madax bannaan oo uu Turkiga ku yeelanayo agagaarkiisa. Moscow waxa ay heshay calaamadaha cusub ee Ankara, waxayna ka faa'iideysatay qodobada muranka ee u dhexeeya Turkiga iyo xulafadiisa ee Washington. sidaasi daraaddeed sanadkii xigay, Kremlinka waxa uu bilaabay in uu maalgashado horumarkan, iyada oo Putin uu booqday Turkiga si uu ula kulmay Erdogan oo ah nin hami leh oo ka soo horjeeda dhul siyaasadeedka, balse si aan kala sooc lahayn ula wadaaga boqortooyadii laga adkaaday, kuna hamiyay inuu sameeyo meel u qalanta ee dalkiisa. kadib sanado badan oo isku soo dhawaansho siyaasadeed oo ku saleysan danaha dhaqaale ee guud iyo sidoo kale isu duwidda siyaasadeed ee xooggan, Ruushku hadda waa saaxiib ganacsi oo lagama maarmaan u ah dhaqaalaha Turkiga. Ankara waxay Moscow ka heshaa 45% baahida gaaska dabiiciga ah iyo qiyaastii 70% baahida sarreenka. sidoo kale Ruushka ayaa leh saamiga ugu badan tirada dalxiisayaasha yimaada Turkiga sanad walba, sida
xogta rasmiga ah ay tilmaamayso in 19% dadkii Turkiga booqday sanadkii hore 2021 ay ahaayeen Ruush, wadar ahaan 4.7 milyan oo qof ayaa booqday. Labada dal ayaa sidoo kale laba jibaaray isdhaafsiga ganacsiga ee u dhexeeya 330 bilyan oo dollar. Inkastoo Turkigu ay saameyn ku yeelatay cunaqabateynta uu Ruush ku saaray, haddana waxa uu doonayaa in uu ka gudbo xayiraadda inta uu ugu macquulsan sida dalalka xiriirka la leh dhaqaalaha Ruushka oo ugu horeeya Shiinaha. Ankara waxa ay bilowday inay ku bixiso qayb ka mid ah gaaska Ruushka laga keeno lacagta rubalka. Doorka dheelitirka Turkiga ma ahayn mid ka maarmi kara cawaaqibka juqraafiyeed iyo dhaqaale ee nidaam siyaasadeedka iyo dhaqaale ee Turkiga, kaasoo isu diyaarinaya doorashooyin masiiri ah xagaaga soo socda si ay u doortaan madaxweynaha cusub iyo baarlamaan cusub oo maamuli doona Turkiga ilaa 2028. Xilli keedka sarifka lacagaha qalaad ee Turkigana uu hoos u dhacay 61 bilyan oo dollar sanadkii hore. Sicir bararkana waxa uu kor u kacay 70% dhowaan, isaga oo gaaray heerkii ugu sarreeyay muddo 20 sannadood ah. Erdogan ma halis gelin karo xiriirka uu la leeyahay Moscow, gaar ahaan markii dagaalku uu horseeday sare u kac weyn oo ku yimid qiimaha saliidda iyo gaaska dabiiciga ah oo uga sii daray biilka Turkiga ee soo dejinta oo miisaanka culus. Turkiga waxa kale oo culays uu ka saaran yahay in uu ka dhoofiyo mishiinada iyo agabka uu u dhoofiyo dalalka Yurub, halkaas oo ay aad ugu tiirsan yihiin agabka dhexdhexaadka ah ee laga keeno Ukraine iyo Ruushka. Kadibna dagaalku waxa uu sababay in la xoojiyo wax soo saarkii iyo waxyeelo soo gaaray dakhliga dhoofinta Turkiga. Si kastaba ha ahaatee, saameynta dagaalka Ruushka iyo Ukraine ee dhaqaalaha Turkiga ayaan ka yareen khataraha juqraafi ahaaneed ee ka dhalan doona joogitaanka Ruushka ee Badda Madow ee sii kordhaya, taas oo Turkiga uu la wadaago Ukraine, Ruushka iyo Bulgaria, Georgia iyo Romania, taasoo macnaheedu tahay in Turkiga u baahan doono inuu xoojiyo xiriirka Romania iyo Georgia, labada saaxiib ee ugu dhow gobolka. Xalin khilaafeedka Bulgaria, kuwaas oo xiriirkooda Ankara uu kacsan yahay waqti ka waqti si loo abuuro dheelitirka awoodda Ruushka ee soo socota ee xeebta waqooyi ee badda. Inkasta oo Turkiga uu doorbidayo in Ukraine ay sii ahaato xeebaha Badda Madow iyo in Moscow aysan si buuxda u haysanin xeebaheeda, haddana waxa ay ka fogaan doontaa inay sii kordho ama ay faragelin badan ku sameyso Ukraine, cabsi ay ka qabaan wareegtada fidsan ee colaadaha, kordhinta xasiloonida iyo sii dheereynta dhaqaale xumada. Badda Madow waxa ay muhiim ugu tahay Ruushka dhinacyo kala duwan, laga bilaabo tamarta, ganacsiga iyo dhaqaalaha ilaa amniga qaranka iyo joogitaanka militariga ee badda diiran. Sidaas daraaddeed, waxay mar walba u arki jirtay haybadeeda Badda Madow inay tahay arrin ku saabsan badbaadada qaranka iyo saldhigga lama huraanka ah ee xasilinta tiirarka awoodda Ruushka ee Yurub iyo nidaamka caalamiga ah. Ujeedooyinkani waxay si joogto ah uga soo horjeedaan himilooyinka deriska Turkiga. Sidoo kale, boqortooyadii hore, taas oo raadinaysa inay dib u soo ceshato sharafteeda, waxa ay u aragto beeraheeda muhiimka ah ee ku xiran dhaqan ahaan, taariikh ahaan iyo juqraafi ahaan. Laakiin waxaa iskhilaafsan Turkiga oo isna ku qanacsan xubinta isbahaysiga reer galbeedka. Xilligii dagaalkii Qaboobaa, waxa uu maanta la yaaban yahay xulafadiisa ka hor cadowgiisa siyaasad dhinacyo badan leh oo uu xaqiijinayo muhiimadda uu u leeyahay NATO, kuna ilaalinayo saaxiibtinimadiisa iyo xiriirkooda adag ee Ruushka maalmaha soo socda oo keliya haddii ay ku caddeyn doonaan in siyaasadani ay ku guuleysan doonto himiladeeda Turkiga iyo in kale, mise khilaafaadkeeda ayaa soo bixi doona mustaqbalka dhow. Daawada aragtidaada qaybta hoose kommentiga noogu reeb. Mahadsanid. barnaamijkeena xogta dunida waa naga intaas. barnaamijkan kan xiga intaan ku kulmi doona nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.